Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magacayga waa Cabdi Xasan. Kusoo dhawaada barashada luqadda Ingiriiska, gaar ahaan ereyada luqadda Ingiriiska. Caawa waxaan baran doonaa vocabularies about day and night, ereyada ku saabsan maalinta iyo habeenka. Sunrise, qorax soo bax. Dawn ama day break, waxaa la dhahaa aroortii hore ee subaxdii markii waaga baryay. Waa beriga ayaa la dhahaa dawn ama day break. Morning waa subaxdii, day waa maalin. Sunrise waa qorax soo bax. Dawn ama day break waxaa la dhahaa waa berigi ama aroortii hore ee subaxi. Alasaydi ayaa la dhahaa alasaydi, qofba siduu u yaqaano. Morning subaxdii, day maalin. Noon waa duhurtii, midday iyo noon waa isku mid. Middayna waa dhihi kartaa, noonna waa dhihi kartaa. Afternoon waxaa la dhahaa galabtii. Afternoon waxaa la dhahaa galabtii. Everyday maalin kasto. Waxaa kaloo dhihi kartaa every afternoon, galab kasto. Every noon waa dhihi kartaa, duhur kasto. Ama every midday, duhur kasto. Duskina waxaa la dhahaa markii iftiinka badankiisa uu dhammaado oo mugdigina aadna mugdi ugu noqonin ayaa la dhahaa. Marka qoraxda dhacayso, dusk. Sunset, qorax dhac. Sunset markii ay qoraxda dhacayso ama qorax dhac. Evening waa fiidkii. Duski waxaa kaloo la dhihi karaa fiidkii. Maqribkii markii cirka uu guduudan yahay ayaa la dhahaa dusk. Sunset, qorax dhac. Evening waa fiidkii. Aan ku celiyo halkaas. Noon waa duhurtii. Middayna waa la dhahaa maalinta kala barkeeda. Midday waxaa laga badaa maalinta kala barkeeda. Noon waa duhurkii, 12 saac markay duhurkii tahay ayaa la dhahaa noon iyo midday. Labadaba waa la dhahaa. Labada erey midkaa rabta ayaa isticmaali kartaa. Afternoon waa galabtii. Everyday maalin kasto. Adigoo isku dayaya inaad wax kasta u bedelatid, every waa kasto. Every dayna waa maalintii. Everyday maalin kasto. Every noon duhur kasto. Every afternoon galab kasto. Every evening fiid kasto. Marka saasaad u bedbedelan kartaa ereyga. Duski waa qoraxda markay dhacayso oo iftiinkii badnaa uu dhammaaday laakiin weli iftiin jiro. Duski ayaa la dhahaa. Ama qoraxda markay dhacayso ayaa la dhahaa duski. Duski ayaa la dhahaa. Marka sunset qorax dhac. Evening fiidkii. Night waa habeenkii. Midnight waa habeen barkii. Today waa maanta. Tomorrow waa beri. Yesterday waa shalay. The day before tomorrow, saa dambe. Aan ku celiyo. Night waa habeenkii. Midnight waa habeen barkii. Today waa maanta. Tomorrow waa beri. Yesterday waa shalay. The day before tomorrow waa saa dambe. Marka waxaan dhihi karnaa ereyada aan soo baranay oo ahayd morning subaxdii, afternoon galabtii, noon duhurkii, evening fiidkii. Waxaan rabnaa inaan dhahno subaxdan, galabtaan, duhurtaan, fiidkaan. Evening fiidkii waxaa la dhahaa 12 markii qoraxda dhacdo ayaa la dhahaa evening, markaas ayuu bilaabanaa. Marka this morning subaxdan. This afternoon galabtaan. This noon duhurtaan. This evening fiidkaan. Tomorrow morning beri subax. Tomorrow morning beri subax. Yesterday morning shalay subax. Yesterday morning shalay subax. Marka waxaa soo baratay morning oo subaxdii ahayd, afternoon oo duhur, afternoon oo ahayd galabtii,
noon duhurtii, evening iyo fiidkii. Marka waxaan rabaa inaa u bedeshid waxaasoo dhan aa u bedeshid. This evening fiidkan, this noon duhurtaan, this afternoon galabtaan, this morning subaxdaan, tomorrow morning beri subax. Marka haddii aad rabtid ka waran inaad dhahdid beri duhurtii, maxaad dhahaysaa? Waxaad dhahaysaa tomorrow afternoon. Beri galabtii markaa rabtid inaad dhahdid waxaad dhahaysaa tomorrow afternoon, beri galabtii. Beri duhurtii markaa rabtid inaad dhahdidna waxaad dhahaysaa tomorrow noon, beri duhurtii. Tomorrow noon ama tomorrow midday. Yesterday morning. Yesterday shalay ayay ahayd mogtahay. Shalay subax. Shalay duhurtii dheh marka. Waxaad dhahaysaa yesterday noon. Yesterday noon. Shalay duhurtii. Yesterday afternoon. Shalay galabtii. Yesterday evening. Shalay fiidkii. Saas ayaa u bedbedelaysaa marka waxaan rajeynaa inaad ereyadan ka faa'iidaysan doontaan, aad sidaa rabtid u adeegsan doontaan ardayda baranaysa luqadda ingiriisiga ee soomaalida ee meel kasta joogto. insha allah waxaan rajeynaa inaan cashirada soo badin doono haddii ilaah yiraahdo. intaan ku kulmi doono cashirkan mid lamid ah waxaan kaga tegaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.